بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Hilaal Maxamed Umar agaasinka waaxda isbeddelka cimilada iyo qabsiga deegaanka ee xafiiska ilaalinta deegaanka iyo maamulka miyiga maanta waxaan qabanay madal ama shir nin walba soo yaqaano lagu mideynayo qorshaha ama lagu joogteynayo qorshaha isbeddelka cimilada ee xafiisyada kala duwan for example xafiisyada kala duwan markaan leenahay tusaale ahaan waxa ku bihaabay 18 xafiis oo kala duwan 18 xafiis 15 xafiis oo kamid ah waa xafiisyada u qaabilsan fulinta iyo dhimista isbeddelka cimilada saadoo ogsoontiinba dalalka caalamka waxa ka socda isbeddelada cimilada oo ay saameynayaan warshadaha waaweyn iyo oo ay saameynayaan waxyaabaha dabiiciga ee ku sameeya labadaba taa marka laga yimaado Ethiopia waxay kamid tahay dalalka ay saameysay isbeddelka cimilada dunida maartay dad sameeyay ku maartay dabiiciga saad ogtihiinba deegaanada Ethiopia marka la yiraahdo deegaanada isku ma jiraan deegaanka Soomaalidu waa deegaan kaleexa ee u dhibaatooba isbeddelka cimilada deegaankeena waa laba nooc qayb waa qaybta abaaraha oo xilliyada maartay roob yaraanta ay dhacdo ee dabiici ahaan roob yaraantu ay dhacdo waa xaaladaha degdega ee bulshada anaga ay waxa weeyaan ay la dhibaatooto marna waa markii roobabka mihigaanka dilaacaan maadaama deegaanka khayraad fara badan leeyahay khayraadkiisana wabiyaal fara badan ay leeyihiin toog fara badan uu leeyahay roobabka waaweyn markay dhacaan in dadkeena ay noqdaan ay ku dhibaatoobaan daadadkaas waxyeelana ay gaarsiiyaan noloshooda iyo tan maartay wax soo saarkoodaba marka aan sida leenahay marka waxa loo baahan yahay ka dawlad ahaan waxa la xaqiijiyay in sektarradani ay xoog saaraan bini'aadanimada lagana baxo ku tirsanaanshaha deeqaha dibadaha si loo helo inaan isku filnaano oo aan noqono dad isku filan waxa loo baahan yahay inaan wax soo saarkeena xoog saarno in maartay la qabsiga isbeddelka cimilada wixii lagu dhimi lahaa aan xoog saarno maanta xaggan waxaan isku yeernay 18 xafiis oo xafiisyada heer deegaan oo kala duwan mas'uuliyiintoodii iyo agaasinada waaxaha waaweyn xafiis walba iyo hay'adaha maartay gargaarka bini'aadanimada deegaankeena u joogo oo ay kamid yihiin hay'adaha UN-ta iyo hay'adaha maartay international NGOs-ka iyo hay'adaha maartay local-ka loo leeyahay gaarka loo leeyahayba sababaha waaweyn ee ka xafiis ilaalinta deegaan ahaan iyo maamulka miyiga aan ugu yeerno waxa weeye in la helo qorshe midaysan si aan u helno goobaha ay ka jirto caqabadaha iyo saan u helno goobaha ay u baahan yihiin laga dhiso garaadkooda aqoonood ama fulintooda aqooneedba laga dhiso u baahan marka howlaha fulinta marka la leeyahay xafiisyadu qorshayaashu waxaan maanta rabnaa inuu xafiis walba qorshihiisa kaga aadan dhimista isbeddelka cimilada inuu soo joodiyo ka xafiis ahaan la qiimeeyo inta la qiimeeyo kadib haddana marka midayn la sameeyo si loo helo qorshe midaysan oo bulshada gaar taasoo lagu dhimayo saameynta isbeddelka cimilada xoog ka saaraya sektarada waxa kamid ah xafiiska beeraha xafiiska xoolaha xafiiska maartay maareynta qataraha masiibooyinka xafiiska caafimaadka waxbarashada xafiiska waraabka iyo dooxooyinka xafiiska howlaha horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha xafiiska jidadka xafiisyada waaweyn ee deegaanka ee ka shaqeeya howlaha dhimista isbeddelka cimilada walow horumar kasta ama maartay horumarar walba la sameeyay ay saameynta beeyadana ay xoog saarayso haddana waxa la xaqiijinayaa iyadoo saameyn beeyada ay jirin ama saameyn deegaan ay jirin in mashaariicda horumarineed la gaarsiiyo goobaha u baahan horumarinta saadoo ogsoontihiin deegaankeena waxa ka bilowday horumarar lixaad leh oo xoog saaraya horumarinta bulshada kaabayaasha dhaqaalaha kor u qaadida wacyiga bulshada iyo dhimista saboolnimada saadoo ogsoontihiinba deegaankeena waxa laga hirgeliyay mashaariic aad u waaweyn mashaariicdaas aad ku waaweyn waxay xoog saarayaan si bulshada la qabsi u yeelan lahayd abaaraha soo noqdo iyo howlaha isbeddelka cimilada si guud marka waxaan hadalkayga ku soo koobayaa dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan waxa loo baahan yahay in aan qayb ka noqono dhimista isbeddelka cimilada lana ilaaliyo waxyaabaha saameynta ku leh isbeddelkeena cimilada ee dabiiciga taasaan fariin u gudbinayaa waxaan halkaan ugu mahadcelinayaa bahda media-ga oo maartay iyaga naftigooda qayb ka ah dhimista isbeddelka cimilada sidii loo gaarsiin lahaa wacyiga bulshada kor loogu qaadi lahaa marka waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga in dhimista isbeddelka cimilada aynan ahayn wax shakhsi kaliya u yaalo ay tahay cid walba u yaal aad baa mahadsantahay